saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka dunida media iyo akhbaaraadkii ugu dambeeyay caalamka maantana waxaad daawan doontaan maxkamadda cadaaladda ICJ oo maanta u fadhiisatay dacwadda muranbadeedka Soomaaliya iyo dowladda Kenya oo aan soo xaadirin madaxweyne Deni iyo madaxweynaha Jubbaland oo kulan la qaatay wakiilo ka socda beesha caalamka. waa maxay sababta wadamada qaar ay u hakiyeen talaalka AstraZeneca ee maanta la keenay Soomaaliya? dowladda Soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixisay talaalka maanta la keenay ee ka hortagga COVID-19 Soomaaliya. dowladda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay talaalka la keenay Muqdisho iyo dadka la siin doono maxaa ka dhaqan galay awaamirtii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya ee xakamaynta COVID-19. maamulka galmudug oo shaki galiyay shirka xalana ka dhacay ka qaybgalkiisa isla markaasina shaaciyay shuruudo hor leh. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad warkeena ku daawan doontaan. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dheh si aad u hesho muuqaalada iyo warbixinada tooska ah aynu idin soo gudbin doono. sidoo kale la wadaag asxaabtaada oo share dheh haddii aad aragti nala wadaagaysana qaybta commentiga noogu reeb. markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan. madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa maanta waxay Muqdisho kulan kula qaateen wakiilada qaramada midoobay iyo midowga Afrika ee Soomaaliya James Iswan iyo Francisco Madera. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa kulankooda looga hadlay siyaasadda dalka iyo sidoo kale marxaladda kala guurka iyo khilaafka ka taagan qabsoomida doorashada dalka ka dhacaysa oo aan wali heshiis rasmi ah laga gaarin muran badan uu ka taagan yahay. James Iswan iyo madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen iyo madaxweynaha Jubbaland sida lagu xalin karo khilaafka doorashada iyo shirka ka dhacaya xeelada xalale ee James Iswan iyo labada madaxweyne ayaa si gaar ah waxay uga wada hadleen sida lagu xalin karo khilaafka doorashada iyo sidoo kale shirka ka dhacaya xeelada xalale ee madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada gobolka Banaadir ay uga hadli doonaan arrimaha doorashooyinka. madaxweynayaasha ayaa maalmo ka hor soo gaaray Muqdisho iyagoona uga yimid ka qaybgalka shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho isla markaana ay ka dhici doonto ama si gaar uga dhici doono xayndaabka garoonka aadan cadde si gaar ah xeerada xalale. beesha caalamka ayaa wada dadaal xoogan oo ay ku doonayso inay madaxda Soomaalida heshiis rasmi ah uga gaaraan doorashada ka dhacaysa isla markaasina madaxda dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulada cadaadis ku saaraysa inay shirar kala duwan ku yeeshaan arrimaha doorashooyinka ayaana intooda badan khilaafku uu ka dhashay waxaanay doonaysaa in beesha caalamka ay xal ka soo saarto isla markaasina madaxda intooda badan ay kulamo isugu yeerayso. waxaa xusid mudan in magaalada Muqdisho oo shirka ka dhacayo ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha Hirshabelle galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed Soomaaliya oo iyagu kamid ahaa dadka ugu horeeyay shirarkii hore ee ka soo qayb gali jiray. madaxweynayaasha ayaa iyaguna waxa ay ku xiran ka soo qaybgalka shirkaasi shuruudo adag. wararkeena ayaadna ku daawan doontaan. waa maxay sababta wadamada qaar ay u hakiyeen talaalka AstraZeneca oo maanta la keenay magaalada Muqdisho isla markaana Soomaaliya intiisa badan loo gudbin doono? dhowr wadan oo Yurub ah oo ay ku jiraan Norway, Denmark, Netherlands iyo Ireland ayaa si ku meel gaar ah u joojiyay soo saarista talaalka AstraZeneca. talaabadan ayaa timid kadib markii walaac laga qabay xididka dhiigga ee xinjirowga badan keenay xididada samabada iyo sidoo kale xinjirowga dhiigga oo uu sababo talaalkan kadib markii dhowr qof oo la talaalay lagu arkay. dhanka kale Talyaaniga, Australia iyo sidoo kale Latrid, Luxembourg iyo wadamo kale waxay joojiyeen in talaalkan laga bilaabo oo iyagu markaasi loo waday waxayna ay sheegeen inay baaritaan ku sameyn doonaan si ay u ogaadaan waxyaabaha ka dambeeya in qof kasta oo lagu mudo dhiiggiisa uu xinjiroobo. barnaamijyada talaalka ee talaalkan AstraZeneca loogu magac daray ayaa ka socda wadamo kale oo ay ku jiraan boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiiska. boqortooyada midowga UK waxa ay ku dhiirigelinaysaa dadka inay sii wadaan talaalka halka qaar kalena ay ka soo horjeedaan. sida laga soo xigtay AstraZeneca waxaa jira 15 dhacdo oo xididka dhiigga muruqa iyo 22 dhacdooyin oo ku saabsan samabada oo laga soo sheegay in ka badan 17 milyan oo qof lagu talaalay midowga Yurub iyo boqortooyada midowga UK. Soomaaliya ayaa haatan loo soo gudbiyay iyadoo walaac badan laga muujinayo xaaladda uu qofka lagu mudo talaalkani uu gali doono, balse waxaanu ku fiirin doonaa warbixinta ay soo saartay iyo faahfaahinta ay ka bixisay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya kadib markii maanta talaalkan la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho. kadib shixnadii ugu horeeyay talaalka COVID-19 ee barnaamijka COVAX loogu magac daray ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. ilaa 300,000 ayaa la sheegay inuu gaarayo talaalkan oo loo qaybin doono gobolada dalka sida ay sheegtay dowladda imaanshaha iyo sidoo kale hirgelinta talaalka COVID-19
talaalka COVID-19 ee Oxford AstraZeneca oo ah tirada 300,000 waxa uu gaari doonaa shaqaalaha safka hore ee dadka kuwa ugu nugul ee Muqdisho. Soomaaliya waxay ka heshay xarunta caalamiga ah ee COVAX in ku filan talaalka ugu yaraan 20% tirada guud ee dadka Soomaaliyeed kuwaas oo la gaarsiin doono talaalka wajiyo kala duwan. Ujeedada COVAX waa in la dedejiyo horumarinta iyo sidoo kale soo saarista talaalka COVID-19 iyo in la xaqiijiyo in dal walba oo caalamka ka tirsan uu si siman oo cadaalad u heli doono talaalkan. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay si joogto ah wada hadallo iyo dadaallo ugu jirtaa si loo kordhiyo qoondada talaalka COVID-19 loona gaarsiiyo bulshada inteeda badan. kadib markii xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay Soomaaliya bishii Febraayo 2020 waxaa la diiwaan geliyay 8,946 kiis oo la xaqiijiyay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxaana jira tiro dhimasho oo gaaraysa 349 sida ku xusan warbixinta asbuuclaha ah ee soo saartay wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adda adduunka u qaabilsan caafimaadka ee WHO. wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Marwa Fawsiye Abikar Nuur ayaa waxay ka waramaysaa arinta talaalkan maanta soo gaaray magaalada Muqdisho isla markaasina gobolada dalka intooda badan loo qaybin doono inkasta oo walaac laga muujinayo. maxaa ka dhaqan galay awaamirta ay soo rogtay dowladda federaalka ee xakamaynta xanuunka COVID-19? dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday go'aano culus oo lagu xakameynayo cudurka safmarka ah ee coronavirus ama COVID-19 kaas oo mar labaad ku soo rogaal celiyay Soomaaliya. xukuumadda iyo maamulka gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay go'aankii ayaa sheegay inay dhaqan gali doonaan wixii ka dambeeyay 15 bisha Maarso oo maanta ku beegan. wararka laga helayo degmooyinka gobolka Banaadir intooda badan ayaa sheegaya in saaka ciidamada ammaanka ay bilaabeen fulinta awaamirta ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku aadan xakamaynta cudurka safmarka ee COVID-19. ciidamada ayaa qabqabanaya dadweynaha la socda gaadiidka BL-ka kuwa raaxada mootooyinka bajaajka ah iyo kuwa lugeynaya ee aan wada xidhnayn ama aan wadan afxirka ama face mask waxa afka qalaad lagu yiraahdo. sidoo kale ilo deegaanka ah ayaa inoo sheegay in dadka qaar la weydiinayay sababta ay u soo qaadan waayeen afxirka iyadoo qaarkood laga qaaday lacago ganaax ah oo dhan $5 taas oo uu soo rogay maamulka gobolka Banaadir. meelaha laga sameeyay hawlgalladaasi waxaa ka mid ah degmooyinka Wadajir, Darkeenley iyo kuwo kale oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. si kastaba Soomaaliya ayaa haatan la daara dhacaysa saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19 oo haatan farabaan ku haya dadka Soomaaliyeed. Galmudug ayaa waxay shaki gelisay ka qaybgalka shirka ka dhacay Xalane sidoo kalena shaacisay nooca shir ay doonayso in uu dhaco shuruudna ku xirtay. maamulka Galmudug ayaa shaki weyn gelisay shirka Xalane isla markaasina sheegay inay doonayaan in Soomaalida dhexdeeda ismaamusho oo ay marti gelinayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. hadalkan ayaa waxaa sheegay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Faragle oo wax laga weydiiyay hadii ay jiraan shuruudo ay Galmudug ku xirtay ka qaybgalka shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada lagu wado inay ku yeeshaan xirada Xalane ee beesha caalamku ay garwadeen ka tahay. wasiir Faragle ayaa sheegay in Galmudug ahaan ay qabaan in Soomaalidu ay kaligeed wada tashato oo aan la soo kala dhex galin sidaas darteedna ay doonayaan in shirkaas soo socda ay marti geliso dowladda federaalka ah. guud ahaan saaxiibayaal akhbaaraadkii aad kala socoteen dunida media waa naga intaas. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh si aad ula socotid wararka xiisaha badan leh ee aynu soo gelin doono barteena. sidoo kale la wadaag saaxiibadaada oo share dheh haddii aragti aad nala wadaagaysana noogu reeb qaybta commentiga. waad mahadsan tahay la socoshadeena.